wax ka horeeyaa jira tarbiyada waxa ka horeeya waxa weeye ilmaha la dhali doono cidii dhali lahayd inaan ka hadalno weey sida lagu raadsanayo shuruuda laga rabo in laga helo qofkan dumarka ah oo la guursanayo ayaa loo baahan yahay in la ogaado waxay diintu ka qabto la ogaado arinta muhiim weey nabiga kaleey salaatu wasalaam aad buu uga hadlay asaaska caruurta la dhalayo waxa asaas oo ah in aad ogaatid in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina abuuray lab iyo dhadig uu inoo abuuray ilaahayna inoo abuuray in aan wada xalaal ah tarankeenna ama aan ku badinno sida ilaahay quraanka u sheegay inaan ku degno litaskunu ilayha waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma ilaahay wuxuu noo sheegay in ma arkaysa aan ka helayno baniina wa xafada guurka noocaas waa mu'assasa kaamil ah mu'assasadaas tiirar bay leedahay haddii tiirarkeeda la adkeeyo waxa ka soo baxayana wax fiican bay noqonayaan awlaadda ka soo baxaysana awlaad fiican bay noqonayaan haddii mu'assasadan aan la adkaynin oo aan loo fiirin xadiidkii wuxuu ahaa takhayaruu linutfikum candhuuftiinna manidiinna meeshaad dhigaysaan eega buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam meel kasta ha iska dhiginina qofka ilma aad guursanaysid waa inaad eegtaa xadiidkii kaloo saxiixa wuxuu ahaa tunkaxu lmar'atu liarbacin haweenayda afar baa loo guursadaa waxaa loo guursadaa limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha afartaasaa dadku u guursadaan nabigu wuxuu yiri miciyaarka aad ku dooranaysaan ha noqdo fadfar bidaati diini taribat yadak quruxdu way tagin xooluhu waxba ku tarimayaan haweenay xoolaheed xasabkeeda iyo nasabkeeda iyo qabiilkeeda waxba ku tarimayaan akhlaaqdeeda iyo diinteeda baa guriga kula galaya waxa ku anfacaya waa akhlaaqdeeda iyo diinteeda marka nabigu kaleey salaatu wasalaam arinta aad buu uga hadlay arinta nabigu ahadiith badan buu ka hadlay تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم مدة هوين إذا رجع جعل جورسدوير وقبلنا أن يرتأ وولي جورسن إن يرجع شيء يسيلو جوجانية فرقة دي بالإيجية هو يدد بالإيجية أيدد بالإيجية ضد كذي بالإيجية ضد كوافروي وحن فرقة دي بالإيجية مركا يعني وإن هاد مارك تأكتا أحاديث تهداد إكتد إن كل هذا مرة لكن مسألة مهم وهي إن عن رفض هذا أدميل الرادسين من إذا هذا ميل في عننا الرادسين ماشى الرادين يسين بيس كذا وإنه نقضى دين تو مركي تاس قضب كأ فهمتid وحال الدنيا هوين إذا نبعد عليه ولي أمر بيلاده وحال الدنيا هوين إذا نكيد عليه إن إذا لوجه له مسألة داس dhalinyaradan way ku khaldamaan wayna ku fududaadaan waxaan jeclahay aad u dhageysataan haweenaydu waa boorso guri taala iskama qaadan kartid ninba iska leh ninkaas dhalay ama waligeeda ayaa la weydiisanaya ayuma mar'atin nukahat min ghayri idni waliha fahiya kada wa kada haweenayda aan yani waligeedu bixinin nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri waa saas iyo saas bimaana waa zaaniyad oo kala way haweenayda hadaan waligeedu bixin بل علماء وحبذا هبتوا ودكتي نكاح هذا باطل بيلين حنابلة إيه مالكية إيه باطل بيلين نكاح ما بدعي ليه مركا وين المهم وإلا ويديستا ولما نوايهن سوشيال كعاون كهل دونا سوشيال ميديا وحد عكرت قبل أبهد نسيي إن أديكونا لها الليسيد أو وحيالها نقولها الله أتكوها الليسيد والله هذا أنا نكو أنا كجورسن دونا وذينا نبو لقر قرطمية أو بيسك قاضنا يا أذينا جوار إسلاميات بعد ملك وحرنا يسوي حل أنا كله أنا جا وانكو جعلها وحنجرين بعض آخر ناس مسألة أصلا مسألة خطرة وي ودبعت بدن كانتي قبل عدل لك قاط عدل لك قاضنا يا قبله سومالي ده هذا هو عدل الجسي دينية مقرنا يسا مركب أرض بالجو قاطع مركب ضمن وضد كعاطفي هوين ذو عاطفة ميران waa loo sheekeynaya ninba u sheekeynaya way ka daba dhacaysaa cidlu ka qaadanaya laakiin markii aabaheed bixiyo laguma degdegaya gabadhii waligeedu markuu bixiyo lagu degdegi mayo waad ka fiirsanaysaa inaad xumaysid